السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan soo booqday xafiiska Tawakal Cargo ee ku yaala magaalada Bay, Stockholm, Sweden. milkiilaha Cabdifataax Cargo ayaa maanta wixii wax bixin ah dhowr information la soo weydiiyay markaan shaacinay shirkadda iyo habkay u shaqeysay nidaamkeeda. marka bismillaah waxaan ku soo dhaweynayaa su'aalo badan aan ka weydiinayaa habka shirkadda u shaqeyso iyo nidaamka siday tahay. isaga ayaa ogaal noogu ah asaan warbixinteeda siinaya. ku soo dhawaad Cabdifataax. waan dhawahay walaal adna waad mahadsan tahay Mr. Cherry. horta ku soo dhawow Tawakal Cargo xafiiskeyga iyo sidaan u shaqeyno haddii macluumaadkan sidaan u shaqeyno ayaan kula wadaagaynaa dadka Soomaaliyeedna aan la wadaagaynaa insha Allah. shirkadani waa shirkad cargoya oo alaab ka qaada Scandinavian geysana wadankii. waa sidii shirkadaha hore ee awalba cargoga lagu yaqaanay tii un baan la mid nahay. gaar ahaan xafiiska waxaan ku leenahay waxa weeyaan Stockholm. waxaanan aad uga shaqeynaa Stockholm iyo ereyadeeda oon alaabaha ka qaadnaa. qofku wuxuu noo dhiibto aanan u geynaa wadankii si nabdoon waliba si aad iyo aad mas'uuliyad ugu jirto. waxaan rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed inay nagu soo xidhaan insha Allah ay noo dhiibtaan hantidooda oo u geyno meeshay rabaan insha Allah. Cabdifataax waxaad maaragtay tiri inaad meel walba aad geyn kartaan oo Soomaaliya dhul walba oo custom leh oo meel walba leh. marka ii faahfaahiyo ma isku lacag baa markaan u dirsanayo meelaha qaarkood mase way kala duwan yihiin؟ waa su'aal fiican Cherry. waa su'aal aad iyo aad u fiican. qiimahoo kale waxay ku kala xidhan tahay meelaha. imika Stockholm markaan ka qaadno in Hargeysa geynayno waa qiimo gooniya. markaan meel kale ama Stockholm ka baxsan oo kale ama example Linköping oo kale aan ka soo qaadno wax in kastoo wax badan ayna u dhaxayn wax yar oo ama 100 karoon ama 50 karoon ayaa qiimaha u dhaxeeya. wadankii gudihiisina marka la geynayo tuulo kasta ama isku qiimo maaha. ima Muqdisho iyo Hargeysa isku qiimo maaha. wax yar oo aanan qofku dareemi karin iyay isdheerihiin. marka kolley qof dadkana waa sidaan marka u macaamilno insha Allah iyo wuxuu wato aan ogaano yani iyakana qiimo aad iyo aad macquul ah yani qofka raali gelinaya insha Allah yani kula shaqeynaa. horena aan ugu shaqeyn jirnay imikana aan rabnaa inaan insha Allah kula shaqeyno. Cabdifataax waxaa kaloo jirta su'aal la soo weydiinayo oo badanaan ardayda lagu soo weydiiyo ay waqtiga ay qaadato from Stockholm iyo Soomaaliya meel walba ka mid ah. waa su'aal fiican. waxay qaadataa ugu badnaan 2 bilood. waa marka aan alaabta Stockholm oo kale aan ka rarno ilaa iyo ama dekada Muqdisho ama hay tagto ama dekada Berbera. laba dekadood bay alaabteedu tagtaa ama Muqdisho ka degtaa ama waxay ka degtaa Berbera. marka hadday Berbera ka degto waxay qaadanaysaa ugu yaraan oo qofku alaabtiisa ku helaya waa 2 bilood. marka waxa laga yaabaa inay maalmo dhaafto meelaha qaarkood oo kale ama baabuur hore loogu waayo. laakiin ugu badnaan anaga oo qofka ugu yaraan labadaas waa 2 bilood insha Allah. waxaan rajaynaynaa waa bil aan ku gurayno alaabta iyo bil ama bil iyo 20 cisho soconayo containerku. Cabdifataax waxaa kaloo jira su'aal ah maaragtay xilliyo gaar oo go'an ma jiro oo aad timetable u sameyseen oo maaragtay oo ama bishaan u baxa ama bisha dambe xilliyo oo aad isleedahay dadka way ku xisaabtami karaan ay dhihi karaan bisha June uu baxaya bisha May uu baxaya bisha August uu baxaya. waa su'aal fiican taasina. May hadda wax noo go'an waxa laga yaabaa bishan dhexdeedaba inaan 2 container dirno. waa sidii dadku alaabta noogu dhiibtaan ama alaab loo helo baa lagu diraa. waxaan noo qorsheysan oo imika leenahay bil kasta ama 2 biloodba mar ayuu baxaya ma jirto. imika bishan imika ku jirnay 3 ilaa bishii hore 23 baan dirnay container. wuxuuna socdaa dadka waxaan xataa la wadaagi karnaa. wuxuu socdaa oo kale imika dhexdaas buu socdaa meel fiican Berbera u dhow yahay
waxaa laga yaabaa waa 30 cisho iyuu socday kani kii labaad baan markaa imika noo diyaar oo dhawaanahan insha Allah isagana aan qaadayna bisha shanaad koodeedan bilaabayna marka waxaa socda registerkii oo dadka waan registerayna adreesadoodan weydiinaa meesha degan yihiin baan weydiinaa waxaan ogaanaa qof kasta intuu haysto marka ka bacdi baan ya alaabta guritaankayga iyo containerkaba marka qorshaha imika noogu horeeya waxa weeyaan bisha shanaad 25kayga inuu Sudan ka dhaqaaqo hadduu ilaahay dhaho ka horna bisha shanaad koodeeda ilaa 25kayga intaan alaabta ay dadku haystaan aan ka soo ururno marka ka bacdi waa kii samarka bixi lahaa alaabta qofku samarka sii dirsan lahaa marka wuxuu ku beegan yahayna bisha 7aad horaanteeda ama bisha 6aad dabayaaqadeeda marka waxaan leenahay dadka ku soo dhawaada kan waa diyaar insha Allah walow aan halkan ku soo qori doono wixii macluumaad oo meesha iyo sida loogu soo xiriirayay emailkaaga ayaa waxaa jira in maaragtay sidee dadka maaragtay ugu sahashaan su'aalaha iyo taleefanka iyo xiriirka waa su'aal aad u fiican qofka raba su'aal inuu weydiiyo qiimaha inuu ogaado weydiiyo inaan meeshan u dirno inuu weydiiyo taleefanku uu furan yahay taleefanka Jerry baa haya oo waxa haya waa TikTok xataa page-ka TikTok-eeda ku jira page-ka wuxuu ku jiraa Jerry Snapchat-ka Jerry buu ku jiraa marka taleefanka saacad kasta iyo waqti kasta oo soo wacdin waan inaga jawaabayna kulay soo dhawaadaan leeyahay wax kasta macluumaad insha Allah waad naga helaysiin maxaad ku boorinaysaa dadka macaamiishaada maxaad leedahay horta waa aad iyo aad macaamiil aad u wanaagsan inta Soomaalida la shaqeynay waxaa jira shirkado hore oo ka soo shaqeynay hatta way jiraan oo aan la soo shaqeynay oo cargo ahaa waxa waqti badan iyo daahitaan badan iyo wax badan baa jiray marka wixii tan way ka duwan tahay shirkadii sidii hore ama dadkii hore looga bartay ama shirkadii hore looga bartay shirkad ka duwan oo ka degdeg badan oo ka daacadsan oo ka magaranaysa yani insha Allah aan rajeynayna inaan noqono dadka Soomaaliyeedna kulay shakhsiyan iyo shirkad ahaanba way isbaranayna marka waxaan leenahay soo dhawaada qamo furan insha Allah inagu soo dhaweynaa taleefankuna uu inoo furan yahay wixii su'aala wixii wax kasta oo aad soo weydiisiin waa inaga jawaabina insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت أيوم هسي ملكي لها توكل كارجو أنا جيري كان بقى لسه حريرة وحي فاهمين شاشة آيات كه لسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته